kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiinba caalamka meel walbo aad ka joogtaan iyo waqti walbo ay idin tahay oo wacan halka aad nagala socotaan ama aad naga daawanaysaan waa channelkiina siriicaad ku soo dhawaada mar kale iyo video horle waad ku mahadsantiin la joogina fadlan hadii aad channelka ku cusub tahay oo ay tahay markii kugu horeysay aadna soo marto ama aadna soo booqato subscribe share channelka kambalelkana furo si aad mar walba u noqotid ka sheekeeyaha oo aan looga sheekeenin hadii aad videogan ka heshay oo uu ku cajabiyana like share sina share garay oo la wadaag asxaabtaada si ay inta samaha jecel caafimaad ugu noqoto inta xumaha jecelna ay ilaahay qalbigooda inoogu soo sameeyo aad u mahadsantiin maanta waxaan idin hayaa horta intaanan gelin ka hor aad waxa u mahadsan inta dib nooga soo biirtay waxa kale oo mahadsan inta hore inoo la joogtay iyo Soomaalinimada ay ku weyn tahay xaqiiq channelkani waa channel ummadda Soomaaliyeed dhan u dhaxeeyo ma aha channel qof qaas ah ama qabiil qaas ah oo lahaan doono insha Allah ilaa iyo inta ay nafi inagu jirto channelkan wuxuu noqon doonaa mid Soomaali weyn oo dhan u dhaxeeyo samahana looga taliyo wiligeena ku arkimaysiin haduu Ilaahay idmo xumaan ama kala faraaruq ama in Soomaalida la kala qoqobo kuma arki doontaan Soomaali meel walba ay joogto luqadda diinta iyo dadnimada inta wayna mideysaa qabiilna gadahay noo noqdo waa mid ka kaliya ku baabaanay waxaan arkay video Sharma Boy oo meesha uu ku xirnaa laga bedelayo marka laba siyaabood ayay dadka u kala qaadeen labada siyaabood ma yaay sax tahay mid kamid ah ayaa sax ah mise gabi ahaanba waxaan la soo qaadanayay sida ay u soo qaadanayaan ma jiraan horta mid waa qeyr oo waa si fiican midka kale tana kulli waa iska arin ay iska yiraahdeen dadka marka labadaas arin ayaan doonayaa inaan iftiimiyo oo aan ka qaado shaaca kan ugu horeeya ayaan ku hormari doonaa oo qeyrka ah dadka qaar ama youtuberada qaar ayaa waxa ay sheegeen Sharma Boy in la sii daayay oo xabsiga laga sii daayay isaaf garad dhacay kadib in uu xoriyadiisa dib u helay waana arin farxad leh laakiin may dhicin taas waxa dhacday in Sharma uu haystaan reerka familka ay gabadha ka dhalatay Allah u naxariistay marxuumadii dhimatay oo run ahaantii xagga magta ayuu u xaniban yahay oo wax kale la isku haysto ma jirto Sharma Boy wax xaaladda way iska sii dhowdahay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa walaalkeen fanaankiina in uu ilaahay ka soo samabixiyo oo si qurux badan ilaahay uga soo saaro meesha uu ku jiro iyo dhibaatada uu dareemayana raxmaanka ka feedo ayaanu leenahay taasi waa taas mid labaadna waxa ay ahayd in ay dadka qaar sheegeen Sharma Boy in loo gudbiyay xabsiga dhaxena sida xaq ah ama aad ogtihiin waxa loo gudbiyaa qofka markii uu xukun ku dhaco xukunna kuma dhicin Sharma Boy oo ma ahan dambi gaar galay oo waxa la sugayaa oo kaliya sida ay u heshiyaan labada family ay ka soo kala jeedaan marxuumadii dhimatay ilaahay ha u naxariisto iyo fanaanka qaaliga ah ee Sharma Boy labadaasi markii heshiyaana Sharma biduun sharuud ama isagoona wax kale ay dhicin ayuu si toos ah dibadda uga soo bixi doonaa oo xabsiga uu ku jiro oo ka soo bixi doonaa hadaba videoga inta badan muranka dhaliyay ama keenay in ay dadka afkaarta ku kala qaybsamaana bal xoogaa ila soo daawada waan isku soo laabaneynaa waad soo aragteen sidaad soo aragteen videogani waxa uu ahaa video oo meeshii ugu horeysay ee lagu xiro Sharma Boy oo laga soo duubay isagoo laga saaray waxaana loo gudbinayay mid aanan kaas ahayn waxa lagu warwareejiyaa waa saldhig xabsi amaba xabsiga dhaxana waxa la geeyaa qofka dambigiisa la xukumo ama xukun qaato ayuu meesha xukunka ku sugo saldhigyadana waa meelaha kaliya ee lagu sugo qofka inta laga xukminayo ama inta arrinkiisa oo dhinac uga dhacayo Sharmana meesha laga bedelo waxay ahayd saldhig meesha loo bedel rabayna waa saldhig ay ahayd wararka qaar waxa ay sheegayaan in amnigiisa loo cabsaday darteed loo wareejiyay ama looga wareejiyay saldhiga balse labada arrinba waa laba arrin run ahaantii Sharma Boy aynan dhicin mid waa tii deynta oo hadii ilaahay idmo waan rajaynaynaa dhamaan Soomaali inta samaha jecelna runaanta xaq niyada ay ka mideysan yihiin oo waxaan leeyahay waxaan ilaahay ka rajaynaynaa ama aan ilaahay ka baryaynaa in uu ka soo saaro sababtoo ah qof walba oo xuriyad la'aan ama ay haysato ama xabsi ku jiro uu dareemi karaa xanuunka ay leedahay in qofka xuriyada laga qaado muhiimadda ugu weyn ma ahan in aad
raashin aad cunto aadan helinin in aad heli karinin waxyaabaha kale aad isticmaalayso laakiin haddii qol xitaa lagu yiraahdo kama soo bixi karaysid xuriyad la'aan weeyaan oo maanta inta aan annaga dareemayno in ka xanuun badan ayuu isagana dareemayaa waa qof ay dhib ku dhacday insha Allah mar walba waxa rajeenayaa hadalka noogala geenaya ama hadalka oo u tagi doono inuu noqdo mar walba mid qiimo leh oo sharaf leh oo dareemi karo fanaanka in uu yahay fanaan Soomaaliyeed in uu yahay walaalkeen in uu yahay wiilkeena in uu yahay wax walba in uu noo yahay in aan garab taaganahay in ayna qabyaaladii na kala qobqobi kareenin oo inta hore inoogu soo dhacday oo dhibaatada inoogu geysatay qabyaalada inta uu nahay inoogu ekaato maanta waxaynu taaganahay inaanu nahay dhammaan dad Soomaaliyeed oo maanta inta qurbaha joogto way dareemi kartaa markii uu ficil ku dhacayo ama markii ay dhibaato ku dhacdo waxa la leeyahay qof Soomaaliyeed ayaa sidani ku dhacday lama oranayo qabiil hebel ayay sidani ku dhacday annaga una isa sii kala wadwadno anaga una sida hoose isku sii kala wadwadno laakiin adduunka intiisa kale waxaynu ka nahay dad Soomaaliyeed oo yacni jinsigaas ayaa namideeyo haddii aad meelaha qaar sii tagtidna waxaad ogaanaysaa xitaa ilaa iyo Afrikaanka in ay yihiin dad adiga kaaga dhow inta kale mar walbana waxaan jeclahay in aan xasuusana cidda aan nahay cidda ay yacni inta aynu nahay oo dhanna in aan mid nahay alxamdulillah ilaahay baana mahad leh oo si qurux badan oo sharaf leh u soo dhameeyay khilaafkii ka dhaxeeyay fanaanka iyo walaalkiisa Daahir Calasow waxaanu ilaahay ka sii baryeynaa waliba waxaan social media in yar ku sii dambeeyo ama sii socdo khilaaf kale oo iska soo cusboonaanaya mar walba markii ka dambeeso xaaladaasi wixii la leeyahay ama ulajeedka laga leeyahay baa laga lahaade annaga muhiimad weyn inooma lahan oo in aan in badan ka sii ogaano ama in badan ka sii raadino muhiimad badan inooma lahan laakiin waxaan leeyahay qof waliba waxa uu yahay ayuu ku sharfan yahay qof walbana waxa uu yahay ayuu ahaan doonaa qof walbana waxa uu yahay ama uu ahaan doono ayuu ku dhiman doonaa marka hadii ay xisaabi dambayso Soomaaliya meel isku kala qobqobno meel aan wax ka raadino meel aan xumaan iyo quran iyo waxaan la garanayn aan ka raadinona maanta ma taagnin oo waxaan taaganahay meesha aan isaga gurman lahayn meesha aan isku dhimrin lahayn meesha aan wax walbo oo qofka hadii uu Soomaaliya yahay kaaga filan ayaa kaaga filan muhiimad badan ma lahan in aan wax isku sii faqoogno walaalkay Sharma Boyna waxaan leenahay Ilaahay ka soo daayo reer Siricaad waxa tiin dad inta badan aan wanaag ku ogahay oo aan rajeynayo mar walba in ay yihiin dad wanaagsan dad xumaha nacab dad qabyaalada ka fog run ahaantii Ilaahay baa runta jecel intiinan soo bixiso commentiga xataa waxaad ka dhiibataan comment nadiif ah saliim ah oo aanan xumaani ku jirin aad baad uga mahadsantiin aad baan idinkaga mahad celinayaa waxaan rajeynayaa in aad si fiican oo qalbisan ah aad maanta isku muujisaan oo aad duco dhag uga soo siisaan Ilaahayna inuu qaboojiyo aad baad u mahadsantihiin walaalkeen waxaan arki doonaa goordhow isagoo xuriyadiisa haysto oo dibadda taagan aad iyo aad baad u mahadsantihiin inta fiidiyogan mid lamid ah aan ku kulmi doonana waxaan idinkaga sii tagayaa fi amaanillah iyo is arag dambe oo xiiso leh